بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhammaan daawadayaashayada uu gaari doono ama ay gaari doonto silsiladan xajka ah waxaanu ku jiraa tobankii ugu dambeeyey bishii dilqacda ahna tobankii ugu dambeeyey gabagabadii bishii juulaay ama toddobaad hijradu waa 1440 miilaadiguna waa 2019 sanadkan dadka muslimiinta inna waa baxeen inna hadday socdaan iyo maalmaha soo socda waxaan ku soo gudbinaynaa xalaqaad iyo duruus kooban oo daqiiqada kooban xalaqad walba tahay oo ku saabsan duruusun fil xaj ama casharra xajka ku saabsan cashirkeenna koobaad wuxuu ku saabsanaan doonaa hordhac iyo laba arrimood arrinta hordhaciya waxaa weeye beytkan iyo kacbadan ducadii ilaah ibraahim baa ilaahay u aqbalay quluubta dadka muslimiintana waa jeclaysiiyey oo waa ku xiray haddii aad tagta waa dhagxan baadii haddaad u baxdana waa dhul saxra camal oo kaleeto oon waxa fiican ka bixin jawga iyo hawada waa kulayl haddana qof kastoo muslimihi inuu sanad walba iska taguu jeclaan lahaa ducadii nabi ibraahim ee ilaahay qur-aan ku sheegay fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim quluubta dadka mid u soo xiisto oo ku xidhnaata ilaahay ou ka dhig taas oo la aqbalay weeye beytka nabi ibraahim markuu dhisay iyo wiilkiisa ismaaciilna ilaahay wuxuu ka dhigay beyt xaraam ah quluubta mu'miniintu ay jecel yihiin qof waliba wakhti iyo maal ku bixiyo inuu mar soo booqdo oo tago camalka iyo waajibka laga doonayana uu soo guto intaa hordhaca kadib labada arrimood aan ka hadlayno waa xukumka iyo fadliga ama xukumku xajku waa waajib qofkii awooda oon cashir dambe shuruudda waajibnimada ku sheegi doona haddii alla yidhaahdo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi fii suurati aali cimraan walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilaahay xajka dadka wuxuu ku leeyahay oo ku waajibiyey inay beytkiisa u xajiyaan oy xajka tagaan waase qofkii jiduu ku gaaro iyo dariiquu u marahaya bimacnaa awooddeeda leh awooddaasaan wax ka tilmaami doonna waxa looga jeedo markaynu shuruudda gaadhno laakiin aayaddan waxay tilmaamaysaa inuu xajku waajib yahay haddii la awoodo dariiq loo marana la helayo ama la gaadhi karoo la tegi karo nabigana sala allahu alay alih wasalam xadiidkii cabdillahi bni cumar ee bukhaari iyo muslim wariyeen waa kii ku yidhi bunya alislaamu calaa khams islaamka waxaa lagu dhisay 5 tiir buu ku taagan yahay 5taa tiir markii shahaadateynka labada shahaada ee tawxiidka ah salaadda zakada sawmka ka shanaadna xajku ah riwaayaadka xadiidka qaar waxay ku dareen waxaju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila sidai aayadduba ay u tilmaantay haddaba 5ta tiir ee tiir islaamka ah ee axkaamtiisa cibaadaadka la isfaray ugu waaweyn midka shanaad wey laakiin inta kale arkaanta ah wax hal wax buu kaga duwan yahay xajku wuxuu kaga duwan yahay cumriga hal mar buu waajibaa salaaddu 5 jeer bay waajibtaa 24 saac soomka iyo zakadu sanad kastay waajibaan qofkii awooda ee shuruuddeedii laga helo xajku laakiin hal mar buu cumriga waajibaa nabiga sala allahu alay ali wasalam abu hurayra wuxuu yidhi nabigu waa noo khudbeeyey markaasuu xajkeenu waajib nagu yahay nagala hadlay wuxuu yidhi dad yahu ilaahay baa xajka idinku waajibiyey fa xuju xajka ilaahay waajib buu idinkaga dhigay hala xajiyo nin baa rasuulka ilaahay ow sanad kasta miyaana laga rabaa nabigu waa ka aamusay
waa ku celiyey su-aashii uu ka aamusay mar saddexaad buu ku celiyey nabig wuxuu low qultu nacam lawajabat walama istatactum haddaan haa idin dhaho waajib bay noqon lahayd mana aydan awoodeen sanad kasta inaad soo xajidaan oo xajku waa masaafo iyo safar dheer waana kharash iyo dhaqaalo badan saas darteed maydan awoodeen sanad waliba inaad soo xajidaan taa macnaheedu waxay tahay sanad kasta waajib ma ahan maratan fi lcumri buu asal ahaan u waajibaa qofkii isagu nadar iyo sharad iyo gale isku waajibiya waa gaar laakiin xajatu lislaam ama islaamka xajka waajibka arkaanulislaam ka midihi maratan fi lcumri waayo waxaa la dhihi karaa xajku cibaadaadka saddexda ee ka horreeyey oo salaaddii iyo sawmkii iyo sakadiiba mid walba wax buu la wadaagaa soomka iyo salaaddu cibaada badaniya la yidhaahdaayoo jirka iyo xubnaha laga sameeyaa xajku waa leeyahay waad socon waad dawaafi waad sacyi orod baad samayn carafiya minaa la aadiya ilaa musdelifa cibaada badaniya waa tahayoo fal iyo ficil aad la imanayso oo xubnahaaga iyo jirkaagu ay samaynayaan wey sakadana mid buu la wadaagaayoo cibaada maaliya wey sakadu xoolaa la bixiyaaye fal kaloo la sameeya ma laha oo cibaadaada isagu maalkiina waa lagu bixinayaa ama safarta iyo kharashaadkeeda ha noqdaan ama hadyiga iyo dhiigga la gowracaya ha noqdaan saa darteed cibaadaadku markay inta kale laba noqdeen cibaadaad badaniya oo jirka iyo ficil ahaan loo sameeya fal ahaan loola yimaado iyo kuwa maal iyo dhaqaal ahaan loola yimaado xajku labadii oo la isku daray wey masaladaas aan kaa baxo qaybta koowaad ee xukumka fadliga xajku waa fara badan yahay wax fududoo hadda aan soo koobi karana ma aha laakiin laba xadiid keliya aan soo qaato oo iyaguna gaagaaban oo kooban mid wuxuu odhanayaa nabigeena sala allahu alيyh ali wasalam labaduna waa min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu wa ardaah labadabana bukhaari iyo muslim baa soo saaray oo saxiixaynka nabigu wuxuu ley man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca min dunuubih kayowmi waladatu ummah dembigaa lagu dhaafaa qofkii xajiya ee laba iska ilaaliya iyo wixii la mid ah falam yarfud walam yafsuq falam yarfud aan xiriir gogoleed xajkiisii ku jabin xormadiisiina aan meel ogaga dhicin xilli ay xaaskii iyo dadkiisii la socday ay xaj iyo cumro xaj dartii xaraam uga yihiin walam yafsuq xadka bax sharcina aan samayn oo ama fal ah ama eray ah waxaa ka mida jadaalka iyo doodda iyo faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj muranka iyo isqabqabsiga iyo dagaalkana iska ilaaliya meesha khalqiga isugu imanayo in lays afgaranayn in lays dhaqan aqoon ee ciriiriga ah ee lays wada derderaya lays jiirayo ee meel walba safka loo gelayo qofkii sabir iyo dulqaad yeesha dhibka dadka uga imanaya u adkaysta isaguna dhibkiisa ka badbaadiya xuduudda ilaahayna ilaaliya intaa xajka uu ku jiro rajaca min dunuubih wuxuu kala soo laabanayaa wixii uu dembi horay u galay ka yowmi waladatu ummu maalinkii hooyadii dhashay oo kaleeto xalay dhalay buu ka noqonayaa dembigaa laga dhaafayaa dembigaa looga dhaqayaa macnaheedu ma aha inaad tiraahdo markaad soo noqoto dembi baan geliya oo haddaan duud bannaan hayaa oo kii hore laiga khafiifiyo meelaa mid kale ku xambaarahayaa ma aha laakiin waxaa lagu tusayaa intaad dembi gelaysay xajku qiimaha uu leeyahay iyo inuu mudan yahay maal iyo waqtiba in loo horo
xadiidka labaad ee abi hureyra ee bukhaari iyo muslim isna wuxuu ina leeyahay nabigu sala allahu alيyh alih wasalam cumro ilaa cumro laga gaadho inta u dhaxaysaa lagu dembi dhaafaa waalxaju almabruuru laysa lahu jazaaءun ila aljanna xaj lagaa aqbalay ood xaaraan iyo dembi ka ilaalisay ood xuduuddii sharcigii rabbi kaa rabay intaad aqoonsatay aad raacisay ood marisay laysa lahu jazaaءun abaal ma leh u dhigma ila aljanna jannada inaad lagu geeyo maahane xajku waxyaabaha ugu badanee jannada lagu galo ka mid yahay marka haddiiba dembigii oo dhan lagaa dhaafood saa ku dhimato mu'min iyo iimaanna aad lahayd dee janno maxaaba kaa hortaagan faman haqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum muflixuun aad noqon xajku dembigu dhaqaa daarta jannana abaalkiisii weeye abaal aan jannada ahaynna ma lahan saas darteed waa mudan yahay wakhti in la geliyo maal badanna lagu bixiyo labada aynu kaga koobanno fadliga xajku leeyahay laakiin fadaa'ishiisu aad bay u fara badan tahay cashirkeennanna halkaasaan ku daynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu